guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee IEBC ayaa shaaciyay in 7,840 qof ay si rasmi ah isku diiwaangeliyeen 4 maalmood gudahooda, halka 259 kaleetana ay codbixintooda u wareejiyeen goob cusub iyada oo weli uu socdo ololaha qaran ee diiwaangelinta codbixiyaasha. Gudoomiyaha guddigan Erastus Ethekon ayaa sheegay in tiradan ay cadeynayso kobac la taaban karo oo ka jira ololahan diiwaangelinta, iyadoo guddiga uu ku howlan yahay inuu dhiirigeliyo ka qaybgalka muwaadiniinta si ay u gutaan waajibaadkooda dimuqraadiyadeed. Ismaamulka Nairobi ayaa noqday ismaamulka ugu horeeya oo ay dad badan isdiiwaangeliyaan, waxaana tiradooda lagu sheegay 597, iyadoo ay ku xigaan Mombasa oo ay iska diiwaangeliyeen 556, Kiambu 386 iyo Kisii oo 312 ah. Ismaamulka Garissa muddadii 4 maalin ahayd oo ay isdiiwaangelintu socotay waxaa iska diiwaangeliyay 160 qof, Wajeer 183 qof, halka Mandheerana ay iska diiwaangeliyeen 218 qof.